niishii markuu ugu horeysa ahayd qofka uu doonayo isbedel inuu gaadho inuu marka hore maskaxdiisa uu ka shaqeysiyo ka fikiro oo uu isweydiiyo ariyu ma joogtaa waqtigii saxda ahayd ee isdii lahayd yani waxaad u baahan tahay inaad ma garanaysaa isbedel muuqda aad samayso marka ani fikirka iyo maskaxdeedu waxay isbedeshay marka hore maskaxdaada isbedeshay way inta noloshaadu isbedelin maskaxdaadu inay isbedeshaa la doonaya ama se aanu ficilkaagu isbedelin marka aniga maskaxdeedu waxay isbedeshay 2018 isku dayo fara badan baan sameeyey dhammaan waan ku guuldaraystay anigoo guuldarro weyn oo aad u ballaaran oo xanuun badan weliba uu igu dhammaaday 2018 ayaa waxa weeyaan bishii koobaad 2019 ayaan guuldarrooyinkaasi maasha allah aan ka faraxashay bishii labaadna ninkan aan saaxiibka ahayneen aad iyo aadka iskugu dheeray oo wadankii tegey ayaa waxa weeyaan fursadan ila wadaagay sidee buu fursadda igula wadaagay waxaad ogtiin wadankii markuu qof tago in la iswaraysto oo la isiraado qofniyo bal waran wadankii maxaa ka jiray maxaa ma garanaysaa jaanis ah aynu ka qabsan karnaa su'aalo noocaas ah ayaan weydiiyey xaqiiqatan isagoo qoslaya ayaa waxa weeyaan uu fursadan ila wadaagay maasha allah markaasuu aniga sanadka hore isku dayada badan sameeyay buu ogaa mar walba waxa uu ka cabsanayay ninka aad baan iskugu dheerayn waa ninaan mar walba wax iskula soo carari jirnay laakiin igulama soo cararin fursadan markuu bilaabayay isagu igulama soo cararin oo markiiba because waxa uu ka cabsanayay inaan ka shaasheeyo oo dhaahdo war waxaan ana sanadkii hadda 2018 ku daalay waxyaabo noocan oo dhan iska daa inaan dhaahdo ayaa waxa weeyaan uu ka cabsanay marka goor uu isagu bilaabay oo already wadankii isagoo jooga oo soo noqon uu bilaabay ayaa uu ila sheer garay milkii maasha allah markuu ii sheegay runtii waxaan sameeyay markiiba baaritaankii ugu horreeyay waxaan ka bilaabay maadaama aan social media aad ugu fiicnaa google kan galay markiiba waxaan eegay shirkadda marta isweydiiyey meeshana degantahay Faransiiska xarun ma ku leedahay waxaan arkay markiiba inay ku leedahay Paris maasha allah 13 xaafadda 13 ay ku leedahay xarun weyn waxaan galay YouTube-ka gabadhii hadda intu saayay $1 milyan ku guuleysatay baan arkay oo runtii Jane la yiraahdo oo UK joogta wow wax laga yaabaa maalintaas ilaa 1 saac ayaan wax weyn gabadha dhageysanay waxaan luqadda Ingiriiskaas kaga fiicnaa markaas si fiican baan u fahmay maasha allah tabarakallah runtii su'aal kaliyaan isweydiiyey markaan training-ka iyo warbixinta YouTube-ka aan daawanay waxaan isiri markaa fursadda dadka cadaanka intan leeg ay ka faa'iideysteen sidan oo dhan u amaanayaan miyaa wax weeyaan wadankii laga helaya wow wallahi waa opportunity weyn waa fursad weyn baan idhi marka mid la dhaafi karaba ma hatani maasha allah tabarakallah isla halkii baan go'aan ku gaadhay waxa weeyaan caqabad baa markaa balaaniga soo wajahay ma jiraan dad aan ku dayan karo oo iga horeeya oo qurbaha jooga oo wiilka walaalkii marka laga tagay saaxiibka ahayn oo iga horeeya marka waxaan isweydiiyey sidee baad ma garanaysaa alaabta ku iibin kartaa productigani seed ku arki kartaa sidee baad uga shaqeyn kartaa shirkadan productigeedii baana aragta su'aalo noocaas aan isweydiiyey wiilkii waxa uu ii sheegay inaan raadsado qof halka jooga oo wax weeyaan ma garanaysaa ayaan idhaahdo alaabtan iibi maasha allah tabarakallah marka waxaan la hadlay wiil walaalkaya oo shaqaale isagoo wasaaradda maalgashiga Somaliland ka shaqeeya ayaa waxaan u sheegay inuu wax weeyaan uu intan iga caawiyo oo alaabtan iibiyo oo aan lacagta u soo diro nin waligii ganacsi hore u arkay nin wax arkay waxaan oo dhanba wax ku cusub bay ahaayeen runtii wuxuu fahmi waayay ayay noqotay marka waxa weeyaan go'aan waxa uu igu dhiniyo ma gali karna hawshaas inaga daa marka xaqiiqatan xataa hooyo oo wadankii joogta ayuu xaggeygii iga maray oo uu ninkii Cusmaan shakadaas uu leeyahay marka igala hadal marka isaga iyo hooyo isku dhan runtii waxay ii soo jeediyeen inaan ma garanaysaa iska daayo anigu waxaan marka meel baa ii muuqata meel weyn baa aniga ii muuqata maasha allah tabarakallah marka waxaan u sheegay horta waxa khasaare iyo meesha ma jiraan product baa la iibsanaya alaabtan kaliya iibiya waxa weeyaan de wixii ma garanaysaa faa'iidana qaado ugu dambeyn maadaama aan ahaan ninka weyn oo de waxa weeyaan go'aankiisa qayb ku leh isagoo raalli ka ahayn ayaa waxaan ku qasbay inuu wax weeyaan alaabteedii iibiyo isagana waxaan u sheegay adiguna waa adiga shaqaale ah giliga dambe oo waxaad qabataa ma jirto ma garanaysaa marka giliga dambe iska shaqayso marka $860 ayaan halkii ku qarash gareynay maasha allah tabarakallah marka runtii caqabada ugu weyn aniga soo wajahday waxay ahayd sidee baad ma garanaysaa product
ku iibin kartaa sidee baa adigoo qurbaha jooga aad shirkadani wadankii aad uga bilaabi kartaa bal adigu maanta adigoo fursadaas lagu soo bandhigay jaaniska kaliya haysataana ay tahay inaad wadankii ka bilowdo bal ma garanaysaa waad garan kartaan yani waa challenge ama caqabad weyn weey alxamdulillah ilaahay markuu wax doonayo ama se uu doonayo noloshaada inuu isku dalwaafajiyo meel buu kaa furdaaminaya ama se albaab ayaa uu ku bixinaya marka alxamdulillah sidii baan ganacsigii ku bilaabay anigu waxaan aad iyo aad ugu kalsoonay aad ii soo jiidatay inaan ma garanaysaa team samayn karo ama se network aan soo xidhi karo oo dad badan ay fursadan u baahan yihiin qurba iyo dibadda taas ay soo jiidatay xagga productiga ima soo jiidan oo alaabtii maan isticmaalin manaan aragna aniga ma garanaysaa laakiin waxay soo jiitay xaggan ma garanaysaa team inaan ku soo xidhi karo waxaan isiri $430 ood gelisay ama se $860 ood gelisay miyaan xataa ku soo celin karin ba haddaad walaale aad caawiso team aad samayso lacagtii miyaan ku soo celin karin maasha allah waxay soo baxday inaan lacag xaggan ka soo celin karo okay alaabtii balka haddaan iska dhigo maasha allah tabaaraka allah alxamdulillah sidii baan ganacsiga ku bilaabay wiilkii axmed anaa isku hoos qoray marka isla bishii labaad saasay ku dhamaatay walaalayaal waxaan helay markaa commissionkii ugu horreeyey commission ilaa $90 ayaa $430 ee qofka axmed yaraan isku diiwaangeliyey iga soo laabtay maasha allah tabaaraka allah runtii dhiirigelin weyn bay noqotay shidaal fiicanna waan ka helay ganacsiga aaminaadii aan sii aaminsanaabaa sii siyaaday waxaana ii bilaabantay bishii saddexaad bay bilaabantay maasha allah tabaaraka allah waxaan diiwaangeliyey bisha saddexaadna tiraba ilaa 3 qof ayaan diiwaangeliyey waxa ka mid ah dadkii aan diiwaangeliyey gabadh runtii Sahra Cusmaan la yiraahdo oo YouTube-ka qaybta commentiga message yar ama fariin yar oo ku qoray oo sidan u dhignayd ma u baahan tahay fursad ganacsi sidaa u dhignayd haddaad u baahan tahay lambarkan soo wac intaa kaliya ay ku qornayd ayaan ma garanaysaa wax weeyaan ishelnay maalin jimcaay ahayd maasha allah ganacsigii degdeg bay ku bilowday way ku qanacday maasha allah tabaaraka allah maanta ma garan kartaan gabadhii waxay ku nooshahay nolol adag tahay inaad soo hesho dadka wadankii jooga inay ku nool yihiin waxay ku guulaysatay dalxiiskii Mareykanka sanadkan maasha allah tabaaraka allah gaadhigeygay ku dhex wadataa magaalada Boorama 3 cisho ka hor maasha allah waxa aan la dalbaayay dhaqaalaha ka soo galay UK ayaan la dalbaayay dhaqaale 2800 oo pound ayaa kawnkeyga maasha allah ku soo dhacay oo nu dalbay markaas waxay tiri miyaa la soo qaldamay 2800 oo pound lacag la 3000 oo xogaa meelahaas lacagtan miyaa la soo qaldamay way tiri lacagtan waa sidee lacagtan inta laga manfilinayn markaas aan ku yiri waad shaqaysay walaalo maasha allah tabaaraka allah oo shaqadii iyo dadaalkii aad samaysay midhihiisii marka mabruuq baan ku yiri maasha allah tabaaraka allah marka walaalayaal alxamdulillah bisha saddexaad bay ganacsiga aniga ii labaad dadaalkii badan ee sameeyay midhihiisii waa ka walaashin Sahra maanta nagala joogta Sahra teamka maanta ka farcamay iyada waxa weeyaan ku tacalluqa aad u ballaaran yihiin waxa kamid ah walaashin Zainab oo iyada wadankii joogta gaadhigay ku guuleysatay يعني ما سو كوبي كرو آبيات أنت سو مانيجر رو أيا تيم كي مانتا يدا لفتي كفر عمي ما شاء الله أحمد كان نيجش كريم مانتا وحويان كقالها وقسم أيو وسرد مالكشجع الله بقول يتدوات $100 أيو شرام قاتها هكذا فوريفنا وحاو قسم أيا بشي كقال الدور كنوا دور قارية إلى تيم كيس واحد شوغا نيوزيلاند أستراليا سود أفريقيا مريكانكا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله دادوي نقم قيهين يعني وحويان bilowgii ganacsiga aan soo bilaabay halkaas walaalayaal soo gaaray alxamdulillah haddaba markaan aan bilaabay anigu runtii aad baan busy ahayo mashquul badan baan ahaa dadka badankiisaba muddo kadib markii aan arkay faa'iidada ganacsiga uu leeyahay waxaan go'aan ku gaaray 8 bilood kadib inaan wax weeyaan shaqadii ka soo go'o oo wax weeyaan bishii tobnaad 2019 aan xaggan isugu soo beero ونتيان نيشبي بدك واحد كل بلابا ما كان يعطي دولار بارت تايم حدونا واحد يبدلان ما كيف فائدة داركان فول تايم بيبدلان أنا ولا أساسا سنة ما شاء الله بشي طبعا ما كان وقت يجي وده قليل نتيجة وين بقول يا صاحب حي ما شاء الله دغالها جاد مو بطي ماني جبان نقضي بشي اللي بيطلعنا ما شاء الله بشي صدحنا قاري كبار بان هلي شنان قاري ما قرنا سلبات تلحيس كيس لو كله senior manager baan noqday oo darajada walaashii ku jirto
safka xaajiyo caawa kayna la joogta kadib walaalayaal waan sii dadaalnay alxamdulillah dhaqaalahan sameynayay markaa wuxuu ka bilaabmay sanadkaas 2019 $400 maasha allah saasuu bil walba bilaabu bil walba noqonayay ilaa uu 10,000 lacag ka badan uu gaadho waxa weeyaan 2020 dhammaadkiisii sanadka waxa uu igu soo dhamaaday 2020 anigoo jeegayga amase waxa weeyaan sheerkii shirkaddan alxamdulillah ku guulaystay ilaahay mahad u sugnaatay sidoo kale waxa weeyaan wuxuu igu soo dhamaaday iyadoo tiimkaygii dad badan iyagana waxa weeyaan ay guulo fara badan ay gaadheen wuxuu igu soo dhamaaday runtii tiimkaygu waxaa 2019 bishii 12aad markaan managerka noqonay 40 qof uu ahaa markuu sii dhammaanayay sanadkii 2020kiina يعني January 2020 bishii koobaad ilaa December inta 12 bilood wuxuu ku gaadhay dadka la shaqeeyaan aniga iyo hoos yimaada dad gaadhay 2300 qof ma sha Allah tabarakallah 2300 qof ku gaadheen maanta adduunka dhan bay joogaan ilaa 30 wadan ayay ku kala baahsan yihiin ma sha Allah soo dhawaada walaalayaal